بسم الله الرحمن الرحيم دمان قرابة وين السلامي وحنا كسلام سلامتي مسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan rabay inaan wax yar ka taabto arrin aad u soo laalaabato dadka Soomaaliduna aysan ku baraarugsanayn arrimaha ku saabsan dadka noo noqda hogaaminta meel kasta oo ay Soomaalidu joogto waxaa jirta wax caado aan ka dhiganay oo ah markii nin madax noo noqdo waxaan u soo jeedinaa dhaliishaas oo ka dhigta asaga inuu yahay ninka ugu xun dadka oo ay dadku ku ducaystaan in Ilaahay ka hor wareejiyo laakiin halba badanaaba laga tagaayo qofkan sababaha keenta in markasta hadaa u fiirtid meelaha Soomaalidu ay xukunka ku leedahay ama ay hogaaminta u helaan fursadda waxa keena oo loo nacbaysto oo waliba loo karaahsado oo waliba loo habaaro waxa dadku ay maxaa la yiraahdaa aysan u fiirsan waxa keena in ninkaasu talada uu qabto ilaan dadka inta tira leeg taladoodu ma wada xumaanaysa hadaysan jirin wax ay ka siman yihiin waan imid magaalada New York ee Mareykanka xaafadda leedahay Harlem oo runtii meel aad cajiib ila ahayd markii oo sababtoo ah meesha aad bay kaadiba ka soo urayso sida kaadiba urayso xaafadan oo qadiimi ah ciyaalkuna 3 o'clock in the morning bay banaan ku ciyaarayeen waxayna u badnaayeen dadka madowga ah maqaayad ku taalo oo Soomaaliya baan markaas tagay waqti dowradeena way ahayd duhurkii lama gaarin subaxina way ka tagtay barqadii iyadoo meelahaas 12 subaxnimo meelahaas baa waxa soo galay anoo kaliya fadhiyo meeshu iska cilatay nin markaas igu yiri waxaan ka soo baxay hospital oo xanuun wadnaha waa la maartay layga daawiyay abardu sheekaystay ninkii wuxuu bilaabay inuu hadlo oo sheekeeyo waliba hadal la murti ahayd oo markii aniga ila muuqatay anuu kuleyba ma weydiin mana uusan aqoonin laakiin wuxuu maadaama Soomaaliya salaamay iska ka soo ag fariistay wuxuuna sheegay qiso markii aan mar dambe xadiis ahaan ku maqlay laakiin markaas ila ahayd oo isoo iga sheekeynay sheekadu way isleedahay siina isma laha sheekada isle waxa weeyaan waa arintii ninkii loo oran jiray Xajaaj bin Yuusuf iyo asxaabigii magaciisa hadda ma hele oo dhowr jeer aan ku maqlay xadiisi ay dhowr imaam ay ka sheekeeyeen oo ahayd ugu dambeysay inuu dilo asagana uusan waxba ka dambeyn ninkaas sheeko badan buu la yeeshay sida hadda aan xadiis ku maqnay laakiin qisada sidoo u wareystay Xajaaj u wareystay asxaabiga ma ahayn sida uu asagu markaas igu sheegay laakiin macnay sameeynaysa markii hadii loo fiirsho sida hadda madaxdeenu maartay iyo dadkeenu ay u macaamiltamaan waxa uu yiri ninkii markuu asxaabigii ka war dhameysay buu markii ugu dambeysay wuxuu yiri xukunkayga ka waran Xajaaj baa oranaya xukunkayga ka warano hadaa run ka sheegtidna waa ku dilaya hadaa been ka sheegtidna waa ku dilaya laba jeer waxa cadaatay inuu ninkani maagay oo dilayo markaasuu yiri saxaabigii واسيد نكو هذا الكودي جاي وحو يري دادك رير عراق وداد أضحن حمانتو دي بان تكتر بلاتي انت الأروشي أو الأروري الأروشا إلهي أدير كاسمي سببتو وحو يري حديهن داد ونعكسن إلهي أدير حكم كوكو مديبين صاد كوم غشين حديثك واسيق الدلي ومركز دعيو يري إلهي qofka iga dambeeyay ha ku salladeen isla markiina waa asagii xanuun qabtay oo dhintay marka intuu san dhiman buu wuxuu sameeyay wiilkiisii ama qofkii ka dambeeyay la dardaarmay in marka uu dhinto meedkiisa aan naxashka marka la saaro aan la leexin oo hadii uu ku soo beegmo darbiga la dumiyay ilaa laga geeyo qabuuraha dadka reer Ciraaq iyaga geometriga ku fiicnaa marka wuxuu xulay dadka ugu maartay cabirka wanaagsan magaaladaas markaas wuxuu yiri lama leexin karo
meydka Yusuf bin Xajaaj bin Yusuf ilaa laga geeyo qabuuraha waa inay street toosan noqotaa marka dadkii dee guryaha la duminayaa dynamite iyo xalay miina iyo waxba laguma xiri karin waxay noqonaysaa in lagu dumiyo gacanta iyo bir iyo waxaas marka waqti bay qaadatay in gurigii laga saaro waqti bay qaadatay deydkii in laga saaro marka dadkii waxay bilaabeen markay dhibsadeen oo ay arkeen amarka la siiyay inuu dhib badan yahay bay waxay bilaabeen inay u duceeyeen Xajaaj oo ay habaaraan ninkii amarka bixinayay oo sida ugu sheegay wiilkiis inuu igu yiri laakiin uguma hubo markuu saas sameeyay dadkii waxay bilaabeen inay loobaan xumaantu Xajaaj sameeyay oo ay xasuustaan wiilkan marka wuxuu igu micneeyay markaa socday 1996kii baa 9596kii arinta Soomaaliya ka taagan oo ah in dadku dhibsadeen Maxamed Siyaad Barre oo ay aad u habaareen oo ay Ilaahay weydiisay inuu dhaafiyo laakiin aysan ducaysan oo ninka ka dambeyn doono wuxuu ahaan doono aysan garanay haddaad adigu dad xuntiin oo waliba xaaraanta aad cuntaan ducadeena lama aqbalayo marka wuxuu yiri markii saas noqotay waxa yimid buu yiri ninka la yiraahdo Maxamed Faarax Aydid markaas dadkii waxay bilaabeen inay haaraamaan Maxamed Faarax oo ay iloobaan Maxamed Siyaad isagoo ah ninkii arintan iyagu sidoo hadalka u dhigay uu leeyahay hadalka waxaan problemka asaga abuuray marka dadku way iloobeen marka tiyo kala hadda socota marka aad fiirsatid dadka madaxda ka ah ama gobolada ka ah ama federaalka ka ah siday dadku u dhaqmayaan inay tahay hadba kii jooga in la haaraamo oo Ilaahay la weydiisay inuu ka hor dhaqaaqiyo oo hadhow mid kale waliba markii ugu dambeysay hadda dadku way isgarteen waxay Ilaahay mid nooga fiican laakiin waxay soo ogeyn haddaynu inagu dhaqan xun leenahay oo aynaan ahayn dad cadaalada ku fiican oo aynaan dadka u cadaalad falnasadeena iyo dadka ehelkeena aysan ahayn hadda way adag tahay in ducadana la aqbalo sababtoo ah waa inaad la timaadaa in laga aqbalo ducada waa inaad sifo badan la timaadaa waa inaad xaalaa qudatada waa inaad dadku cadaalad fidaa waa inaad maarta Ilaahay ku xiran tahay intaas waxa laga yaabaa meel inaan ka nusqaamanahay marka aslonga aan anagu ka nusqaamanahay meel ducadeena sida loo aqbalaa way adkaanaysaa innagana keensanay maaha wax Ilaahay dusha naga saaray midda kale madaxdana aynu u duceyno oo ducadaas waxa laga yaabaa inaynan garanba haddaba waxay aad iigu maartay ixsuusisay ninkaasu sheekadu iiga sheekeeyay iyo sheekooyinka hadda aan arkay gobolada Soomaalida ka from waqooyi to koonfur iyo federaalka iyo even hadda meelaha aynu xafiisyada ku leenahay oo dibadda ah oo sida ama organizationka nadaha noqoto ama ha noqoto meelaha muhiimka dadkeena u ah haddaba haddaynu rabno in Ilaahay noo gargaaro waynu inagu fiirnaa waliba cadaaladda baasha cadaaladda la yiraahdo aynu u toogayno inaguna cadaalad isu falnaa dadka kalena cadaalad falnaa oo marka liya aan cadaaladda fiirin marka adiga ku qusaysay aad markastaba u cadaalad fashaad ilaa xataa haddaad qofka aadan maartay jeclaysan waxyaalaha anaga hadda ku nabadgalay wadamadan galbeedka oo aad nolol kan leeyahay yahay laakiin waxay u cadaalad faraan inay isa ka leexan taasaana Ilaahay ugu naxariistay oo barwaaqada aragto anagu aan ugu soo hijroonay Ilaahay ku siiyay wadankan hadaan joogo waxa weeyaan maxay ka baqi mayo in qof inta igu soo duulo uu sameeyo haddii igu soo duulana saddex number baan garaacay nimankaasu way noo soo gurmanayaan even though aysan markaas laga yaabay inaysan ku qanacsanayn laakiin sharcigooda ilaaliyaan marka inagu cadaaladda uma asaxfashno waxaan ka bilaabaynaa inaynu u cadaalad falno dadkeena oo markii anaga taabta kaliya aysan dhicinin markii qof aadan u jeclayn ay arintan soo foosarto waa in aad maartay cadaaladda u heelisaa oo sharciga u heelisaa haddii aan sharcigu jirin oo aanan lahayn cadaalad sharciga fulisa iyo dad arintaas u heegan oo fulinaya xaaladdeena weligan sida thiiba isaga daba laabanayna sida ninku sheegay oo inta awr boqola isku xiriiriya kii ugu horeeyay kii dambe ku xiriiriyo yiri alla urubix hadda xagee urubaga baxaysaga arinta abuuray intaan arintan iyo arin kale in la wadaagahayo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh